بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته halkani waa xogta dalka qodobada warkeena aad ku daawadootaan waxa kamid noqon doona Rooble oo musharaxnimadiisa ku dhawaaqayo maxay tahay waqtiga kan waxa keenay in Rooble uu ku dhawaaqo inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya degmada wadajir oo laga qaxay lacag nooc cusub ah oo shacabka lagu soo rogay maxay tahay lacagtaasi khilaaf ka dhex taagan dowladda Soomaaliya iyo shirkadaha caalami ah oo shidaal muxuu yahay khilaafkani wararkaasi warar kale oo ugu dambeeya xaaladaha guud ee siyaasadeed ee dalka ayaan daawadayaal warkeena ku soo qaadan doonaa haddaba daawada haddii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka wararkeena like iyo share iyo commentiga noogu dadaala aan ku bilaabo رئيس الوزراء محمد حسين رابل ayaa musharaxnimadiisa ku dhawaaqay xilli uu doonayay inuu ku guuleysto xilka madaxweynaha Soomaaliya sida ay ogaatay warbaahinta waxa socda qorshe uu ku shaacin doono musharaxnimadiisa madaxweynaha Soomaaliya Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble xubno ka agdhow ayaa sheegay in uu ka faa'iideysto saameynta siyaasadeed uu yeeshay inuu xilka ugu sareeyo dalka isagoo isu soo taago dhinacyada isku haysta tartankana qayb uu ka noqdo horey ayuu injineer Rooble u sheegay inuusan ahayn musharax balse howlaha xukuumadda iyo hirgelinta doorashooyinka uu ku koobnaan doono hase yeeshee hamigan ayaa waxa uu muuqanaya mid wadamada Imaaraadka Carabta ay si weyn ugu riixayaan Ra'iisul Wasaare Rooble iyo beesha uu ka soo jeeda xafiiska Rooble ayaa guuxaasi uu ka jira isoo sharaxidiisa xilka madaxweynaha Soomaaliya kaasi oo dadka ay isweydiinayaan waxa isbedelay go'aankii hore in uu diiday in musharaxnimadiisa lagu tuhmayay Rooble ayaa codkiisa ka iibsan kara hadii uu wareegyada ugu dambeeya u gudbi waayo doorashada madaxweynaha musharaxiinta ay isfahansan yihiin oo hoolka teendhada Afisoni isugu tagi doono dhammaan mucaaradka ayaa hal mabda ka siman waa in ay doonayaan inay hor istaagaan farmaajo inuu mar kale xukunka uu ku soo laabto lamana oga xaaladda doorashada iyo cidda ay noqon doonto inay ku guuleysato xilka madaxweynaha Soomaaliya balse Maxamed Xuseen Rooble inkastoo cadaadisyo xoogan oo maalmihii ugu dambeeyay beesha uu ka soo jeeday iyo sidoo kale dowladda Imaaraadka Carabta uu kala kulmay haddana musharaxan madaxweyne ee soo baxay ayaa waxa uu muuqanaya inuu durbaba saameyn uu ku yeelan doono doorashada Soomaaliya sanadkan waxaa la fahansan yahay inay wajiyo fara badan ay leedahay qof walbana rajadiisa waxay tahay sida uu ku guuleysan lahaa doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya waxaa la sheegayaa inay shakhsiyaad aad u fara badan ay ugu cadcad yihiin inkastoo qof rasmi ah aan farta loogu fiiqi karin kooxda farmaajona waxa ay rajeynaysaa in talaabooyin adag oo ku aadan arrimaha doorashooyinka ay qaado dhanka kalena khilaaf ayaa ka dhex taagan dowladda Soomaaliya iyo qaar ka mid ah shirkadaha caalami ah oo shidaalka dowladda Soomaaliya iyo shirkad laga leeyahay dalka Mareykanka ayaa waxa ka dhex taagan muran ku saabsan saxaanshaha heshiiska shidaal ee baarista bishii Febraayo lagu gaaray magaalada Istanbul wasiirka batroolka iyo macdanta Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed iyo Reginald Anderson oo ah madaxa fulinta shirkadda Coastline Exploration Ltd ayaa heshiiskani wada saxiixday Reginald Anderson ayaa sheegay in ka hor inta aanan la saxiixin heshiiskan shidaalka baarista in ay la tashadeen wasaaradda shidaalka iyo hay'adaha batroolka Soomaaliyeed iyagoo xaqiijiyay in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay ka warhayaan howshaasi Anderson oo la weydiiyay sababta shirkadda ay ugu dhaga adeegtay wareegtadii ka soo baxday madaxweynaha Soomaaliya iyo waraaqadii ka soo baxday guddiga isku dhafka ah ee kheyraadka dabiiciga ee baarlamaanka oo faray in hay'adaha dowladda inaysan heshiis geli karin xilliga doorashada ayaana ku jawaabay waxba ma aanan iska indhatirin ka hor inta aanan saxiixin heshiiskaasi bishii Febraayo waxaan la tashanay wasaaradda iyo hay'adaha batroolka Soomaaliya waxaana noola xaqiijiyay in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha labaduba ay ka warhayaan howshaasi ayna ku qanacsan yihiin saxiixa Anderson ayaana sheegay in uu ku kalsoon yahay baaritaanka uu wado xeeraryaha guud ee Soomaaliya oo ku ogaan doono in shirkadda Coastline ay u hoggaansatay sharciga Soomaaliya isla markaana heshiiskaasi la fasaxi doono sida uu hadalka u dhigay
si kastaba ha ahaatee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ka hor yimid heshiiska shidaal baarista waxaana eedda dusha uga tuureen wasiirka batroolka inkastoo aysan jirin wax tallaabo ah oo dembi ah oo lagu qaaday heshiiska kadib dhibaatooyinka dalka ka jira ee xilliga kala guurka ayaa waxay tahay in dhammaanba madaxda dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan qaar ka mid ah golaha wasiirada iyo xogayaasha dhammaantoodba ay ka faa'iideysanayaan jaanisada ay ku helaan heshiisyada dheeraadka ay la galayaan qaar ka mid ah shirkadaha ajaanibta ah. waxaa horey sidaan oo kale u sameeyay wasiir Duraan wasiirka duulista iyo hawada xukuumadda Soomaaliya waxaana taasi ay noqotay cawaaqib xumo ka dhalatay dhibaatooyinka kala duwan ee heshiisyada ay marka qaarkood golaha wasiirada ra-iisul wasaare Roble ay galayaan. golaha wasiirada ra-iisul wasaare Roble ayaa dhammaantoodba waxay yihiin kuwa tacadiyo fara badan durbaba ka geysanaya dalka. dhanka kalena degmada Wadajir ayaa laga qaxayaa iyadoona lacaga nooc cusub ah shacabka lagu soo rogay. maamulka degmada Wadajir ayaa ku soo rogay shacabka xaafadaha degmadaasi lacaga aad u badan oo u dhaxaysa $50 ilaa $100 lacagtaasi oo la sheegay in mid lagu diiwaan gelinayay dadka taasi oo ka fajicisay dadweynaha ku nool degmadaasi. xiriir aan la sameynay maamulka gobolka Banaadir ayaa iska fogeeyay in ay wax ka og yihiin balse wax ka qabasho la'aanta maamulka ee arrintaani ayaa abuuraysa in shaki ah in wax ay kala socdaan waana arrin u gaar ah degmada Wadajir oo aan ka jirin degmooyinka kale ee gobolka Banaadir. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Filish ayaa waxa la sheegayaa wax kasta oo ka dhacaya degmada Wadajir inuu si toos ah uu kaga warhayo waxaana gudoomiyaha degmada Wadajir ee gobolka Banaadir la sheegay inuu si weyn ugu shaqeeyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Filish. wararka hoose ee soo baxaya ayaa waxay tilmaamayaan in kooxda Cumar Filish ay haatan qorshayaal kale ay wadaan oo ku aadan in degmooyinka gobolka Banaadir madaxda degmooyinkaasi lagu soo rogo in lacaga dheeri ah ay ka qaadaan qaar ka mid ah degmooyinka. sidoo kale qorshahan waxa uu hadda ka socdaa degmooyinka Yaaqshid, Shibis, Boondheere, Kaaraan kuwa oo qaatay amarka Cumar Filish. Cumar Filish ayaa doonaya in qarashaad fara badan uu aruursado inta uunan imaanin madaxweyne cusub dalka maadaama uu og yahay haddii uu dalka u yeesho madaxweyne cusub in gebi ahaanba xilka gudoomiyaha gobolka laga qaadayo. madaxweyne ka duwan Farmaajo haddii uu Soomaaliya madaxweyne ka noqdo waxaa gebi ahaanba laga taqluusin doonaa shakhsiyaad aad u fara badan waxaana ugu horeeya gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Filish iyo qorshahan uu haatan uu ka bilaabay degmooyinka gobolka Banaadir ayaa u muuqanaya in uu markan uu akoonadiisa uu ku buuxsanayo lacaga sharci darro ah. shacabka reer Muqdisho ayaana waxaa jira in ay markan ay wadaan guux siyaasadeed oo adag oo ay kaga soo horjeedaan lacagahaasi looga qaadayo isla markaana marka qaarkood xabsi ay ku muteysanayaan in ay ka soo horjeestaan lacagahaasi inay dhiibaan. waxaana warar hoose aan helnay ay sheegayaan in maamulka degmada Yaaqshid dad aad u fara badan ay xabsiga dhigeen waxaana la sheegay dadkaasi xabsiga la dhigay inay ka soo horjeesteen lacagaha ay maamulka degmada Yaaqshid ee gobolka Banaadir ay ka codsadeen in ay dadka ay dhiibaan. wararka ugu dambeeya ayaa waxa ay sheegayaan in maalinta ka dambeysa cabashada iyo sidoo kale qeyladhaanta shacabka Soomaaliyeed ay taagan tahay. sidoo kale go'aankani hadda ka soo cusboonaaday degmada Wadajir ayaa waxaa la tilmaamay in dhalinyaro fara badan iyo qoysas badan ay la sheegay in ay aad lacagahaasi dhibaato badan ay ku noqon doonto. lacagahan ayaa loo qaadi doonaa sida tan guryaha jiingada ah $60 ayaa laga qaadi doonaa filooyinka $50 iyadoona dabaqada laga qaadi doono $100. lacagtaani lama oga halka ay ku dhaceyso balse maamulka degmadaasi ayaa ugu dambeyn gacanta u galaysa iyadoona uu ku wareejinayo gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Filish. guud ahaan daawadayaal warkii oo aad ka daawanayseen janaalkeena xogta dalka saaxiibayaal oo anaga inta hadaba daawade haddii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka orarkeena leega iyo sheerka iyo commentiga noogu dadaala waad mahadsantihiin. amaan Allah.